الرحمن الرحيم مدحويني هراء جمهورية السودان لا ظاهر ريالة كاهن قولها وزير هذا قولها برلمان عندي كشوفتا قولها دقن كا مملكة إيه مدحض قولك أول ضمان قلب شريعة شلمان هالك فدي أرتيدا إدغري ودي قاتك باركي هراء كي لبان يبص كلاجويت با والدين تكون تبعي بروفيسور سليمان يا ضمان دخلك سوق قبلي وحن السلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta iyo maalmaha soo socda waxaan ka nasanayaa buuqa iyo hawshii xafiiska madaxtooyada waxaan maalmahan la wada doonaa arday badan oo jaamacad ka qalin jabinaya waxaana ka dhigo ugu horeysa jaamacadda Camuud waayo si kooban maxaad uga dhigaysaa waxaan ka tirsanahay bahda Camuud maanta waxaanu hambalyo gaara siinayna oo aad iyo aad loo hambalyeynaya oo inta halkan joogto guushii weynad haya professor Saleebaan waayo waa macallin maanta hor taagan ay hor joogaan laba madaxweyne u soo tababaray isagu waa dhifyo naadir adduunka معلم أما بروفيسور أما جامعة وهالشغلة ما مدحوين وسوق صارتي ووري بروفيسور يسوق صار وتشوفه إن الكلمان وادي في النادر وأنا أتصل كلام هذا مركا إله كوستي مثلا يبان إما تالك السوق هاي كاري السجى الظاهر يا كاري أو ولد ما قدم يسوق الظاهر أنا ليش هيك اسكت دوبي أنا اللي أنا بوها لكن أروح سلام على سوق أنا راح أقول بلا مرها وإله النادي يصير حدنا وتاي عالم كانوا وتاي rag badan oo kale way joogaan muddo kale oo halkan ka soo baxay taasi waxay idin sheegaysaa ardaydiina maanta qalin jabisay iyo kuwa hore iyo kuwa iman doonaba halka waxa inankii hadlaayay magaciisa uu ka sheegay af Soomaali aad u qurux badan iyo ereyo muhiim ah oo ballanqaad ah oo jaamacaddu waa jaamacadda haldoorka iyo hogaaminta professor Saleebaan intuu shaqeynayay macallimiinta way soo saareen idinkuna inaad u dayrtaan baa la idinka rabaa annagana faanbayno noqonaysaa taariikh haddaa soo saartaan dad badan oo sida maanta ardayda Camuud ka baxay haldoor u tahay wada haldoora idinkuna awdada markaa mardir jiray dhowr qodob oo halkan la yiri waxaan ka xumahay dhanka ka faraxsanahay wasiirka caafimaadka oo halkan waxaan ka xumeeyay waxa uu sheegay inuu durustiisa jaamacadda qaato oo kiis la isaaraya ah adaa inaan ka kaxeeyo jaamacadda laakiin waxaan idin sheegayaa inuu digriigii halkii uu socday ka hayo ilaa imikana uu ku hayo inuu yahay nin ka soo baxay Camuud oo shaqadiisu ilaa maanta sidii loogu igmaday uu u wado taasina farxad bay gelinaysaa marka labadaas arrintaas uu talabaad inantii ina caaqil Ibraahim Barjaale waxaan ku hambalyeynaya inay halkan isku sharaxday madaxweynenimo haddana bahda Camuud dhammaanteen ku hor iyo ku yar iyo ku weynba waxay noo faara inay gabar bahda Camuud sharaxday waxaanay xaq inoogu leedahay inay wada taageero Soomaha waxaan soo sheegayaa مسؤولية هالكاس يصدق لنا هذا اللي قاله وزير له مدحر dalka hogaamisa inay ugu yartahay inta gaadhay wasiir Umar shaqadiisii iyo tacliintiisii uu ka kala tuurtay inta ka go'day kooraskiisii jaamacad ee ka go'day wadadii u ahayd oo carruurtiisa ka go'day oo waqtigiisa ka go'day oo dhaqaalihiisa soo galay ka go'day intaas way ka go'day waxa u bedeshay intaas oo dhiba waxa u bedeshay intaas oo canaana waxa u bedeshay soo jeed waxa u bedeshay canaan waxa u bedeshay eedan waxa la saaro waxa u bedeshay xaggeen qabatay maxaad haysaa hawshaasay leedahay marka waxaan soo dhaweeyaa barwadi madaxweynaha anagu bahda Camuud iyo ciidan helo waa ku gara taagan oo diyaar garow intaas oo qoyskaaga naftaada ka go'aysa ardayga hadda ay hadalkiisa wuxuu ku soo gabagabeeyay markuu ereyo suuban oo aad u cilmi ku dhisan oo af Soomaaliga uu si heer sare uga hadlay madaxweyne ku tashan waxaan nahay ciidan qaranka u soo baxay oo hawsha ciidan qaranka la soo diyaariyay waa gudoon
waxaan ku sayaa qalabka maanta wuxuu baahay halkeenu kaga hagna hawshu way badan tahay waxaan u sheegayaa dadka dawladda waxa laga qiyaasaa qarni walba miisaaniyadooda halkay wax marinayaan waxay soo saaraan miisaaniyadda dawladda haddii uu raacdo ilaa tii u horreysay oo imika dhowr iyo labaatan sano mar walba waxa u badan oo dhaqaalaha ugu baxan adduunku ku baxaa dalkeena waa nabadgelyada way soo yaryaraatay konton bay ka bilaabantay boqolkiiba konton boqolkiiba afartan way soo socotay labaatankaa sannadood maanta ta soo socotay iyo tii hore waa boqolkiiba 8 baa nabadgelyada ku qoran mar haddaad aragto dalkiisa dhaqaalihiisa uu ku baxay xagga security iyo ciidamadana dagaal buu ku jira horumar ma samayn karo markaanu ku qoray nabadgelyada iyo hawlaheeda boqolkiiba 8 maanta ay taagan tahay caafimaadkeenu waa boqolkiiba 6 weli wax ka dhimayeen boqolkiiba 5.9 tacliinteenu waxaanu ku dadaalayna 8 gaadhno 7 waxba maraysa boqolkiiba waxaa tihiin ragga mutacalimiinta ah bal dalkaasi hadday xag u socdo haddaba nabadgelyadu maxay ku baxdaa hor ciidan iyo military ma iibsano wuxuu ku baxaa dagaalka deegaamada dhexdeeda weli waxaynu ku jirnaa xaaladii ka soo qabashadii dagaaladii dhacay dadku isma aaminsana reerihii walaalaha ahaa ee weedeganaa ee aan warigooda isqadaroofin ayaa hadday ijaar ku urmaan qoryo soo guranaya hadday isku dhacaan deegaamadii ma bogsoonayso oo waxa dhibaato keenay taban isgaarsiinta casriga ah oo khasaaraheeda iyo faa'iidadeeda leh markay reerkii istiraan awal hore maanta hore hadday islaayaan qof iyo iska dilayeen imika waxay soo adeegsanayaan rub casri waaweyn waxa intaa dheer taladii odayaasha imika ninkii halka hadlayo xaaji miisaan uu ku soo celiya geedka ee inta afar daacadoo ilaahay taqaano wax kala doonayso timaado ay arinta war maxaa inoo dana oran jireen waxaa inoo taliyaa baalkan internetka Australia Canada Kawaran Kamir qaba ka professorka ah ku anda kala ahay mid walba uu soo talinaya dadkeenu waxay qabaan fikrad ah qofka dibadda jira inuu aqoon badan hayo wanaagsan way jiraan rag waaweyn oo culimaa oo adduunka ka qayb galay oo dibadda wax ku bartay oo talada soo wada wax u baahan soo daayay kuwii talada laga ilaalin jiray haddaad bika furto 9 war oo aan muddo meel jiray allahay badan ay qofka jiray dadkeena u badan reermiyi ama dhaqankeenu wanaagsanaa haysta ee ahayd wargalan iyo war laga qaato isma laha qof baa been sheegay waliba wax la soo galay warkii baan wala qaadanaa warbar ku hormaraya dagaalkii ma bogsanayo ma dagaayo marka waxaan u baahanahay si aynu horumar u sameeyno aqoonta aqoonyahanka cusub ee ka mid yihiin kuwii hore waa inaynu ku fikirno sidee baynu khilaafaadka u yareeyno sidee dadkeenu isu aaminaan sidee dadku isku dhacayaan oo bini aadmi oo iskhilaafayaan markay iskhilaafaan loo daweeyaa ee looga saaraa caqligana waan garanaya waan u jeeday oo bariyo caynkaas ahayd ee qofkii wuxuu ku adeeg kala dhageysanayay halkaa inaan xoog saaro ayaa koowaad oo diray waxa la mid ah in maskaxda wax laga bedelo maanta xabsiga dadka dhow jira 2500 maxbuus weey dadka 40% waa dhalinyarada da'doodu ka yartahay 30 dhamaantood waxay ka yimaadaan magaalooyinka waaweyn ee tacliinta dhaqaalaha leh Hargeysa Boorama Burco ayuu badiyay waliba waxay badan yihiin haddii la eego da'da sanadka hore jaamacadda iyo secondary-ga iyo intermediate sanadka u dambeeya 40% ka maxaabiista ah marka laba meelood oo qaybiyo nus baa ku jiray secondary-ga sanadka koowaad ka labaad ka saddexaad ilaa jaamacadda iyo wax la mid maxaa dhacay xadaaradan cusub ka tii dhibaatada caruurtaasi qofka dariiqa maraya waxay ku dilayaan mobile hadday kubadooda ciyaaraan oo weystilayaan midii isu qaadanaya hadday dhaafaan xaafad bay u dagaalamayaan xaafadihiina markay labadii carruur ay istilaan halka xaafadu isku mid ka ahaan jirtay reeraha kala baxaya dabeetana booliiskii baa la kordhinaya oo ciidan baa la kordhinaya caqligu wuxuu noqday carruurta oo sii fara badanaysa waalidkina shaqo badan ma hayo booliiskii ardayda isku xiiqeen jeelashina way buuxaan sidee baynu u bedelnaa maskaxda carruurteena technology-gana khalkhalinayo war kale aan disinaya dalka Ingiriiska UK dadka ku qaxay Soomaalidu guud ahaan magaceeda waxay ka mid tahay ajaanibka ugu tirada yar tira ahaan waxa leeyahay waxa loo qaxay England oo moodin inay badan yihiin marka la istirino
caalamka dadka ku soo baxay waa kuwa ugu tiraya nasiib darro bableeshinka maxaabiista ku jira Soomaaliya ugu badan waxaan ka rabnaa dhammaantiinba qolo walba hawsheeda inay research ka samayso seebishkada loo xaliyay dhakhtarada inay caafimaadka research ka sameeyaan injineerada guryaheedu maxay doonayaan laga sameeyo qolo aan ku farxado maanta magaceeda aan maqlay soo dhawoonayo aan isku sii bahanahay siyaasadda iyo horumarkana waxaan ka doonayaa inay attitude-ka dadka inay see loo bedelaa oo derritoonka lagu socono wuu adkaaday sidee baynu behavior-ka dadkeenu bedelaa maskaxda oo u soo celaa dadkeenu inuu is aamino walaaloobo markaa aqoonyahanka waxa la ha u kaceen sidee maskaxda dadkeenu loogu soo celiyaa wax qabsi isku qaadashay inuu wax wada habo oo u yarana kharashka laga baxayo gurmadka iyo beeraha iyo dhibaatada taal iyo dhibashada maalumaad taag ee aabran macnaha ee bariya galbeed baray taas aynu baahnay haddaynu sawqii socono waxaan wuxuu ku soconayaa gurmad iyo qaba iyo gurmad soconaysa maanta intaas ay ka socdaan dad tiraahdo waa gurmanayna waa soo dhaweynaya waa ku dhaadanayna hoggaanka waa idin dhibina ilaa wala soo dhibaya oo kolba niman dhibaya salaban loo dhibaya waa idin sii dhibina haddii la yiraahdo waxa kale oo ku faraxsanahay sheekhi halkan inuu akhriyo wacdi tacliinta iyo waxtaridda iyo iskoolidu waa da'da inama waxay noqonayaan jiilkii afraad ee tacliinta maanta ka soo baxa halkan ku yimid professor Salaam baa jooga anigu soo barbaaray ana isagoo yaroo quraanka xafadaan rag ka bilaaba carruurta war carruurta ay saaqay war quraanka loogu dadaalo markii dambe yoon diyaarad iyo wax la raaciyay jirna ari baan arqaata la sii saaray oo ku tagay Makka oo ku soo bartay sidee nimads maanta ka soo hirgelinahay inta uu inoo soo wada joogo waa afar da'ood waa ilaahay maadi daada shaqada waa miisaaniyo qoladii markii gaariga wata carruurta soo qaadaysa marka walaal noloshu waa caynka inaynu taan u diyaar garowno aad dadka u dhistaan tan iska imaano waxaan ku soo koobayaa ugu dambeeya dhammaanteen isna maanta waxa mahadnaq fagaarahan inaan uga mahadnaqo oo waliba anigu madaxweynaha qaranka aan u mahadnaqay inoo taagan mudane madaxweynihii hore daahir liyaana kaay in badan boorka soo kim caarsi aad ku ahayd ku sii jirtay waxaan idin sheegayaa dalku inuu nabad yahay oo aan siyaasad laga baqaan jiray oo aan dhageysan waxana ay wadaan miidiyaha iyo buuq waxa taasina tusaysaa imaankiisa iyo erayga aan oran doonaa dalku inuu nabad yahay maskaxiyan iyo siyaasiyan in la murmo oo arrin isku qabtaan qoysku ay isku qabto macalkii ardaydu isku qabtaan dadka dalka siyaasadda hogaamiyana ay dhaliilayaan ee aanay jirin cayl iyo kala tag Soomaaliland iyo odayaashiisa daariya ka ruuxu ku sutay ardayshii sagaal sanadood oo mucaarabada oo ku madaxweynaha dhabaradiisa waa ku mahadsan wuxuu ku mahadsan yahay waa madaxweynihii laga helay ee raggii xisbigiisa la joogay ay BBC ka sii daayaan aqbalin baynu ee intuu soo baxay waan aqbalay ee kaga tagay waa taariikhdu kaliya ma kaliya waa taariikhdu walba u taalayo taayeen oo siyaasadda soo galay ku jiray xilka taaganba waa ogeydeen xisbiyihii xogeeyay xisbigiisa iyo afhayeenkiisii ayaa idaacadaha waa ka sii daayay aqbal bina waxa soo baxay afar saacad ka badan isaga soo bixin waan aqbal waa taariikh uu leeyahay oo xusuus badan taariikhda u galaysa aynu kuna amaanayno kuna xusuusanayno marka laga reebo 9 sanadood wixii soo qabsado aad iyo aad baynu isga mahadnaqaynaa dadkuna intay nool yihiin waa inay wax isu qiraandeen marka aan tolay Soomaali ma yeeleen mana soo bahlo ma yeeleen waxaan ku soo gabageenayaa hambalyo qaranku uu idin sugayaa odayaashana sana way sugayaa dadaalkiina waa ku mahadsantiin idinka waalidkiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan subscribe saar si aad u hesho muuqaalo dheeraada sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barta aanu ku leenahay Facebook-ga fadlan si aad ugu xidhnaato like saar bogga Twitter-ka ayaa sidoo kale aad nagala socon kartaan si aad u heshaan sawirro iyo muuqaalo dheeraada muuqaalo qoraallo iyo sawirro dheeraada waxaad kala socon kartaan mareegaha www.somalilandnation.com ama www.madaxtooyada.jsl.com